Hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxman cabdishakuur warsame oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay tababarka ugu qaaday dalka Eritrea kuwaasi oo waalidiintooda dareen aan wanaagsaneyn ku abuurtay kadib markii hadal laga waayay dalkana aan dib loogu soo celin ilaa iyo hadda. cabdiraxman cabdishakuur warsame oo soo xiganaya hay'ad u ololeysa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ciidamadaasi baaritaan la sameeyay lagu ogaaday in ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega. Waxa uu ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo inuusan ka aamusin intaan ka badan xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamadaasi Soomaaliyeed. sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya maxamed xuseen rooble ayuu ka codsaday hogaamiyaha xisbiga wadajir in waalidiinta caruurtaasi ay ka maqan yihiin oo la fariisto si uu ula wadaago dareenka waalidnimo dowladana ay jawaab cad ka bixiso. sababtiin ciidankaas waxaa lagu qaaday si sharci darro ah oo aan waafaqsanayn nidaamka qorista ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidanka qalabka sida guud ahaan. markaan baaritaan sameynay waxaan weynay ciidamada qalabka sida booliska militariga iyo nabad sugidda meel ay ka tirsan yihiin iyo hanaan lagu qoray oo lagu qaaday ma jirin. dowladuna way ka aamusneed intaas ay waalidiinta dalbanayeen inay ka jawaabaan way diideen oo waa aragteen oo mar kasta oo la weydiiyay arrintaas way ka maagaan oo waa ka sagsaagaan. maanta waxaa soo baxay oo caddaatay in ciidankaas ay qayb ka ahaayeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega ah. haddaba way dhamaatay xilligii la isku qarinayay daaha gadaashiisa ama laga dhuumanayay mas'uuliyadda way dhamaatay. waxaan dalbanaynaa in waalidiinta jawaab la siiyo. waxaan dalbanaynaa in wiilashii Soomaaliyeed iyo gabdhihii loo qaaday dalka Eritrea ay dowladda ka jawaabto. waan ogeyn horena waa u sheegnay waa ku celcelinay laakiin haddeertaan waxaa soo baxday warbixin caalami ah oo qaramadooda ka soo baxday oo arrintii ka marqaati kacaysa. waxaan u baaqayaa madaxweynaha xilkiisa dhamaaday inuu banaanka soo istaago mas'uuliyadda arrintaas oo qaado. waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed inuu rabo inuu isku qariyo doorashada uu raadinayo inuu ku qariyo dambiyada oo dalkan ka galo ay kamid tahay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo dagaal ugu dilay deegaano kale oo ka baxsan Soomaaliya. arrintaasna arrin ka baxsanayo la xisaabtankeedii mas'uuliyaddeed inaysan ahayn. waxaan rabaa inaan la hadlo ra'iisul wasaaraha Roble oo hadda mas'uulka amniga dalka laguna wareejiyay meel fagaara iyo madal qaran intaba. waxaan rabnaa inuu waalidiinta la kulmo. waxaan rabnaa inuu jawaab ka bixiyo ciidankaas Soomaaliyeed ee dhalinyarada ee la qaaday meesha ay jiraan. waxaan rabnaa inuu arrintaas ka gabanin oo banaanka u soo istaago oo caddeeyo mowqifkiisa arrintaas ku aadan maadaama hadda asaga uu ka yahay dalka ra'iisul wasaare xukuumaddiisana ay tahay xukuumadda xilgaarsiinta loo igmaday inuu arrintaas soo istaago oo ka hadlo oo mowqifkiisa ku aadan u caddeeyo la gurmado waalidiintaas la raadiyo ubadkoodii iyo ilmahoodii meeshaas loo qaaday inuu la raadiyo. waxaan kaloo ugu baaqayaa madasha wadatashiga qaran xubnaha dadka ka ah dowlad goboleedyada ay ku jiraan sidaas oo kale inay mas'uuliyadooda qaataan. waxaa la yiraahday waxaa jiray hadal taariikhi oo laga wariyay hogaamiyihii u dhaqaaqayay xuquuqda dadka madow ee wadanka Mareykanka Martin Luther King oo yiri injustice everywhere is a threat to justice everywhere. cadaalad darrada meel ka dhacda waxay halis ku tahay cadaalad meel ka jirto. nabadgelyo darrada meel ka dhacda waxay halis ku tahay nabad meel ka jirto. saas daraadeed waxaan ka soo qaadaynaa waalidiintaas ilmahooda ay ka maqan yihiin annaga naga maqan yihiin waxa maqan ubadkeena ay yihiin oo ay deegaanadeena ka maqan yihiin. waa hubaa shanta dowlad goboleedba dhalinyaro ayaa laga qaaday deegaanadooda ayaga aysan ogeyn markii la qorayo. saas daraadeed arrintan waa arrin national issue ah waa arrin qaran. saas daraadeed inay madasha wadatashiga qaran arrintaas si dhab ah oo degdeg ah oo serious ay uga hadasho waayo maadaama ay arrintii ay ku soo baxday warbixinada caalamiga oo mas'uuliyaddaas inay qaataan ayagana ugu baaqayaan. sidoo kale baarlamaanka labadiisa aqal ee ku meel gaarka xilligooda oo yahay ayagana sidoo kale qaasatan gudiyada amniga iyo difaaca waa inay arrinta mas'uuliyad iska saaraan oo u istaagaan oo ay waalidiinta la saftaan oo arrintii maadaama ay soo cadaanayso maalin ka dambayso ay gudiyadaas baaritaan ku dhaqaaqaan oo ay la xisaabtan arrintaas ku aadan inta yar oo u hartay dadka Soomaaliyeed kulay xildhibaano waa labada aqal doorashay rabaan inay intaas ummadda Soomaaliyeed ay ku sheegtaan oo ay xisaabtaas ay banaanka soo dhigaan ayagana ugu baaqaynaa. runtii waa arrin aad iyo aad looga naxo arrintan in muddahan daba taagnayn dadku way nala yaabanayeen markaan lahayn ciidamadu meelo kale ka dagaalameen laakiin haddeertan waa arrin caalami ah oo banaanka soo baxday. annagana dee dadka Soomaaliyeed xaqooda iyo inay cadaalad helaan u taagnayn ayadaan dhibaato badan u marnay jidkaasaana ku taagannahay. sidaas daraadeed waa dhamaatay xilligii la isku qarinayay boorka xilligii laga dhuumanayay mas'uuliyadda farmaajo waxaa laga rabaa maanta inuu banaanka soo istaago adduunkiisa ku cadeeyay
ciidankii halkan oo ka qaaday inay meel kale ka dagaalamayaan saas daraaddeed inuu mas'uuliyadda qaataan rabnaa oo bannaanka soo istaago oo wax badan oo ka dhuunta dadka Soomaaliyeed oo ka dhuumanin waalidiintan oo ka dhuumanin waxa uu sheeganaa waalidiintii aan la safanahay oo wixii aan tabar leenahay aan la garab taaganahay ayagana inay ka quusanin inay xaqooda raadsadaan oo ilaa xaqooda ay ka helayaan oo ilmahoodii loo soo celinayo oo guryahooda loogu soo celinayo naf iyo nolol baxay tahayba kii dhintay xataa loo sheego xaqi u leeyahay waalidiintaas magdhowna laga siiyo sababta uu dhintayna loo sheego kii nool in loo keeno loo soo celiyo ayaa waalidiinta kula safanahay Ismaaciil Axmed Maxamed VOS Muqdisho